Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Soo dhawaada saaxiibayaal. Waxaanu ka hadli doonaa xanuun loo yaqaano dhagan fiifar oo bilooyinkii u dambeysay lagu arkay magaalada Hargeysa. Waa xumad ama qandho aad u daran isla mar ahaantaana sababaysa dhiigbax lagana yaabo inuu qofku dhinto. Intaynu ku guda jirno muuqaalkan yar ee kooban waxaanu isla eegi doonaa 4 qodob. Qodobka koowaad, maxaa keena qandhadan? Qodobka labaad, sidee lagu kala qaadaa? Qodobka saddexaad, calaamadaha lagu garto? Qodobka afraad, daaweynteeda. Ugu dambeynna waxaan isla wadaagi doonaa sida ugu habboon ee looga hortago qandhadan. Haddaba, soo boqoshada kanaalkani haddii ay tahay markii kuugu horeysay, fadlan subscribe saar, videogana like saar, lana wadaag asxaabtaada adigoo share gareynaya muuqaalkan si aynu u helno saaxiib u qiimo badan sida adiga oo kale. Mahadsanid. Qodobka koowaad, maxaa keena qandhadan? Qandhadan aadka u daran ee loo yaqaano dhagan fiifar waa caabuq uu keeno fayrasku. Asal ahaan waxa uu ka tirsan yahay qabiilka loo yaqaano Flavivirus, waana 4 nooc ama afka qalaad waxa loo yaqaano 4 serotype. Marka la sharaxayo asal ahaanta fayraskan waxa loo kala qaadaa sidan. Waxa uu ka tirsan yahay Flavivirus, waa influenza virus, waana positive single strand RNA virus. Intaasi waa warbixin yaro kooban oo ku saabsan asal ahaan halka uu fayrasku ka soo jeedo. Qodobka labaad, see loo kala qaadaa? Xumaddan aadka u daran ama qandhadan halista ah waxa lagu kala qaadaa qaniinyada kaneecada. Tan micneheedu waxay tahay qof qaba xanuunka oo ay kaneeco qaniintay inay adigana ku qaniinto isla kaneecadii soo qaniintay qofkii qabay xanuunka. Inta badan kaneecadani waxay ku caan tahay meelaha loo yaqaano tropical and subtropical areas ama dhulka kulaylaha iyo dhulka kulaylaha hoose. Waxaa jira wadamo badan oo ay caan ka tahay qandhadani sida Bangladesh, Brazil, India, Indonesia, Singapore, Yemen iyo qaar kale oo fara badan. Qodobka saddexaad, calaamadaha lagu garto qandhadan. Inta badan waxaa jira calaamado khaas ah qandhadan iyo kuwa ay la wadaagto xanuunada kale. Si aynu iskula ogaano calaamadaha lagu garan karo qandhadan ayaa waxaan u qaybin doonaa 3 marxaladood oo ay mari karaan dadyowga ama bukaanada ay ku dhacdo qandhadan. Marxaladda koowaad oo loo yaqaano febrile phase iyo marxaladda labaad oo loo yaqaano critical phase iyo marxaladda ugu dambeysa oo noqonaysa saddexaad oo loo yaqaano recovery phase ayaynu isla eegi doonaa. Marxaladda koowaad oo loo yaqaano febrile phase waa marxalad run ahaantii sahlan. Waxay qofka kaga soo bixi kartaa muddo 4 cisho ilaa 7 cisho. Wuxuu qofku isku arki karaa xumad, madax xanuun, waxa loo yaqaano retroorbital pain oo ah godka ay ishu ku taalo xanuunsada ama xanuun uu ka dareemo godka ishu ay ku taalo. Sidoo kale wuxuu isku arki karaa xunqaaco ama matag. Waxa uu soo raacaa shuban. Ugu dambeynna qofku waxa laga yaabaa inuu isku arko calool xanuun. Marxaladda labaad ee loo yaqaano critical phase, qofka waxa lagu arkaa ama bukaanka waxa lagu arkaa calaamadahan. Thrombocytopenia oo noqonaysa xinjirowga dhiigu inuu yaraado ama meeshaba uu ka baxo. Calaamadda labaad oo ah vascular leakage oo ah dhiigbax. Calaamadda saddexaad oo noqonaysa dhiig yaraan. Dhiig yaraantu waxay ka imanaysaa marka uu dhiigbax meesha yimaado. Dhiigbaxuna wuxuu imanayaa marka xinjirowga dhiigu uu yaraado. Ugu dambeyn, marxaladda saddexaad ee loo yaqaano recovery phase waa marxaladda uu bukaanku kaga soo raysanayo dhammaan calaamadihii ay soo sheegnay oo dhan. Haddii aynu u imanno qodobka ugu dambeeya oo ah daaweynteeda, ma jirto wax daawo khaas ah, balse waxa laga yaabaa wadamada qaar inaad ka hesho talaal. Talaalkaasina ma suuro gelinayo gebi ahaanba inuu kaa ilaaliyo fayraskan. Ugu dambeyn, sidee looga hortagi karaa qandhadan aadka u daran ee loo yaqaano dhagan fiifar?
Habka ugu wanaagsan ee looga hortagi karo qandhadan aadka u daran ee loo yaqaano dhaga fever waa in la iska ilaaliyo meelaha ay kaneecadu joogto iyo in la adeegsado mara kaneeco si looga badbaado qaniinyada kaneecada. Ugu dambeynna waa in la daweeyo dadka qaba xanuunka si looga hortago inuu faafo. Waad ku mahadsan tahay inaad dhamaysato muuqaalkan. Fadlan haddii aanad subscribe saarin channelkan, subscribe saar, videoguna like saar, ina wadaag asxaabtaada. Tan iyo muuqaalka dambe, mahadsanid.